Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa muuqaalkeennii labaad iyo cashiradeenii aan ku sharaxaynay conflict wordska ereyada khilaafka aan ku sharaxaynay. Ereygii koowaad sidaan hore kusoo qaadanay waxa uu ka hadlayay maxaan ku dhahaa controversy ayuu ahaa ereygeenii u horreeyey. Waxaan soo sharaxnay isagoo definitionkiisii sidoo kale sambaladiisii isagoo ku jira 3 sentence isagoo ku jira ayaan soo sharaxnay. Sidoo kale waxaan sharaxaad dheeriya kasoo bixinay ereyadii la midka ahaa ereygaas controversy ereyadii la midka ah oo mid walba uu markaasi wato maxaan ku dhahaa isagoo sentence ku jira si ay kugu fududaato inaad ereygaasi xasuusato. Intaas markii laga yimaado ereyga labaad ee maanta aan sharaxaynay waa maxay? Waa altercation. Ereygaasi ayaan maanta aan sharaxaynaa haddii ilaah yidhaahdo. Ereygan haddii definitionkiisaan ku horeyno sida aad barateenba ama muuqaalkii hore aad ka aragteenba waa ereyga definitionkiisaan mar walba soo horeysiinaynaa. Definitionka wuxuu ina leeyahay ereygan altercation maadaama uu ku jiro categoriga ereyada conflictiga wuxuu ina leeyahay waa noisy argument, yacni saad dareemaysid waa khilaaf, yacni dhawaaq iyo khilaaf daran inuu yahay ayaa dareemi karaysaa oo dee khilaaf hoos yaala ama khilaaf muuqda ayay ka dhigan tahay markay noisy yidhaahdaan. Ama waxaan odhan karaynaa waa disagreement. Saa darteed habka marka u horeysa waxaan fahnay in ereyga kani uu ka mid yahay ereyada conflictiga inuu ka mid yahay ayaan fahnay. Waa tahay waxa inoo xiga markaa isaga oo ku jira markaasi maxaan ku dhahdaa context ayaan bal iyadana soo gudbinaynaa. Sample sentence workplace ereygana loo isticmaalayo workplaceka goobaha shaqada iyo wax la xiriira loo isticmaalayo ayaad bal xaggan hadda ku arkay. The team meeting turned sour when an altercation broke out between the manager and employee over the missing deadline. Wuxuu leeyahay markaa team meetingii la qabanayay wuxuu isu bedelay mid aad u xun kadib markii ay timiday khilaaf markuu ka dhex qarxay when an altercation broke out marka uu ka dhex qarxay khilaaf between the manager ninkaasi managerka ah iyo sidoo kale shaqaalihii oo markaasi waxa sababayna uu yahay missing deadline maxaa waqtigii la isu qabtay inuu qofkaasi uusan maaragtay uusan sidii loo baahnaa u imaanin. Marka ereyga hadda maxaa loo isticmaalay? Waa altercation, waa khilaaf. Waxaan odhan karaynaa when a conflict ayaan odhan karaynaa. When a conflict broke out waxaan odhan karaynaa ereygan horey soo dhiganay oo ahaa controversy. When a controversy broke out baan odhan karaynaa. Marka waa isku wada mid weeyaan. Family life isagoo loo isticmaalayo during Thanksgiving dinner iyadoo lagu jiro markaasi cashadii mahadcelinta political discussion yacni dood siyaasadeed baa sparked ayaa qaraxday a brief altercation. Waxaa tira marka a political discussion is sparked political discussion yacni dood siyaasadeed ayaa sparked waxay maaragtay sababtay a brief altercation yacni khilaaf yar ayay sababtay oo between u dhexeeya my uncle adeerkay iyo sidoo kale an cousin iyo wiilkiisaba ama in adeerkay oo kale. Marka hadda waa ereygii oo away waa altercation weeyaan. Way public transportationkii isagoo ku jira ereygan maxaa lagu yidhi a passenger was removed from the bus yacni gaadiidka dadka macaamiisha ee soo raacaya saad garanaysid waa rakaabkii rakaabka mid ka mid ah ayaa removed from the bus baska laga saaray. Maxaa sababay? Following a loud altercation with the driver about the fare. Wuxuuna leeyahay markaasi ninka waxaa looga saaray baska markaa khilaaf adag weliba oo hadalka kiisa adag waa maaragtay ayay noqonaysaa markaa sida meesha ugu jira hadda loud altercation yani waa hadal adag ama khilaaf adag oo soo dhex maray isaga iyo ninka darawalka oo de waxay ka doodayeen about the fare marka dee lacagta uu markaasi bixinayay ayay dood markaasi ka galeen. Waa tahay erayada la midka ah waa similar wordskii altercation erayada la midka ah argument waa dood
They had an argument about money, but it didn't turn into a full-blown fight. Waxay markaa ay ka doodayeen oo khilaaf uu ka dhex jiray wax uun ku saabsan markaa lacagta. Kaba soo qaad inay yihiin ninkii passenger-ka iyo driver-ka ah, laakiin maynan isu bedelin full-blown fight. Dagaal dhammaystiran isumaysan bedelin. Full-blown fight saasan kalarku wixii waa dagaal dhammaystiran isumay bedelin. Okay, quarrel, quarrel, quarrel waa ereyga labaad ee isaguna khilaafka tilmaamaya. A heated, often personal argument. Yani waa personal argument waliba usually between people who know each other. Hadda halkaa u fiirso. Quarrel waa khilaaf buu tilmaamaya, laakiin waxaa loo isticmaalaa dadka isgaranaya ayaa loo isticmaalaa. Inta badan dadka isgaranaya loo isticmaalaa. Waliba waa heated buu ku yiri, waa dagaal xoogaa yaraa maaragtay yara xoogan weeye. Waayahay, the siblings had a petty quarrel over who got to use the car first. Wuxuuna leeyahay nimankii ciyaalkii mataanaha marka waxaa dhex maray ama maaragtay soo dhex galay a petty quarrel. Waxaa soo dhex galay khilaaf aan macno lahayn, khilaaf maalayacni ayaa soo dhex galay. Waxayna markaa isku khilaafeen who got to use the car first. Yaa markaa gaadhiga marka hore isticmaalaya. Waa khilaaf noocaas ah ayaa soo dhex galay. Laakiin almuhim waa quarrel inaad fahantid inuu khilaaf yahay. By the way, dad isgaranaya weeyaan bal wuli inta badan dee waa wax family la xiriira iyo dad isgaranaya ama dad shaqay ka wada dhexayso si fiican isu garanay. Khilaafaadka idinka dhexeeya dadkan isgaranaya ereygan ha u isticmaalin. Waayahay, prowl, prowl isaguna waa khilaaf. The hockey game, gameka hockey la yidhaahday, turned ugly. Wuxuu isu bedelay waxaan fiicnayn when a prowl markuu khilaafay erupted between players uu ka dhex qaraxay nimankii playerska ahaa. Nimankii ciyaarayay markay iskhilaafeen gamekiina wuxuu isu bedelay waxaan fiicnayn. Waa tahay meesha waxa soo biiray aan eego. Okay, prowl buu yaan maaragtay animationka dib inooga dhigay. Rough waa dagaal markaasi physical fight ah, usually involving a multiple people. Dad fara badan ba inta badan dee ayaa loo isticmaalaa kan prowl marka lagu leeyahay khilaafka la yidhaahda waxaa loo isticmaalaa dad fara badan oo dee kubadda dadka ciyaaraya ma yara, waa dad fara badan wey. Markay iskhilaafaan oo kale dee dad fara badan baa islaynaya. Markaad khilaaf dad fara badan u dhexeeya aad sheegayso waa inaad isticmaashaa ereyga prowl. Prowl waa inaad isticmaashaa. Quarrel waxaa lagu yiri waa dadka isgaranaya khilaafkooda markay dad isgaranaya oo maaragtay dee aqoon fiican isku leh khilaafkooda aad ka hadlaysidna quarrel ayaad u isticmaalaysaa. Bal kaale hadda ereyga clash ayaan ka hadlaynaa. Waa ereyga afraad, 1, 2, 3 afraad weeye. A brief waa khilaaf yar horta, but intense conflict waa khilaaf saameyn leh. Waa khilaaf saameyn leh weeyaan. Either verbal buu noqon karaa oo dee wax uun afka la iskala dagaalamay buu noqon karaa, ama physical buu noqon karaa oo dee verbal la isula tegay. Haddii dumar aad tahayna miyaan dhahaa kaba la isula tegay. Sida dumarka hadda gym-tay ba qaadaan oo xaaladdu ay ka duwan tahay sidii hore. There was a clash between fans of rival between teams. Waxaa jira khilaaf markaa u dhexeeya taageerayaasha tiimasha markaa kubadda ciyaara. After the match markii oo maaragtay ciyaartu ay dhamaatay, inta badan waa aragteen garoomadeena sida Soomaalida oo kale. Marka dambe waa la islaayaa, ciidan baa dadka soo kala kaxeeya. Markaas oo kale ayaa loo isticmaalaya khilaafka noocaas ayaa wax la isticmaalaa clash. Clash ayaa loo isticmaalaya. Waayahay, antonyms waa ereyadii opposites ama ereyadii kasoo horjeeday altercation-ka ayaa maaragtay iyagana xaggan aan kaga hadlaynaa. Maadaama altercation khilaaf tahay maxaan leenahay agreement. Oh, ereygan waa caan asaga. Ereyga waa caan weeyaan. After hours of discussion, marka muddo saacado ka bacdi dee lagu jiray dood, the committee guddidii finally ugu dambeyn reached waxa ay gaadhay an argument. Okay, heshiis bay gaadhay. There was a widespread argument. Waxaa jira markaasi agreement heshiis ballaaran on the new environmental policy. Yacni sharciyada cusub ee environmentiga loo dejiyay aad baa loogu heshiis loogu ahay is widespread. Yacni waa
iswaafaqitaan aad u ballaaran ayay ka dhigan tahay. Harmony, harmony, harmony maxaa tahay? The team worked in perfect harmony. Teamkii waxa uu u shaqeeyey si wada shaqayn leh ayuu u shaqeeyey. Af carabi waxaa la yidhaha tanaasuq, waa dadka oo si dhow u wada shaqeeya to complete the project, si ay markaasi projectigii ay u dhammaystiraan. Almuhim waa un erey khilaaf kasoo horjeeda, marka saasaan usoo qaadanay. The community living in harmony, yacni bulshadu waxay u nooshahay in harmony, yacni waxaa tidhahdaa waxay u nool yihiin si wada jir ah ayay u nool yihiin despite markii laga yimaado their cultural differences, maaragtay culturekooda oo markaasi kala duwan. Consensus, consensus waa maxay ereygana markaa? Consensus, the scientists achieved a consensus on the best approach to the problem. Nimankaasi culimmadii waxay gaadheen ijmaac, wixii la odhanaya ijmaac waa in wixii lagu wada heshiiyo on the best approach to that problem, to the problem. Yacni dhibaatadan sidii lagu xallin lahaa waxay gaadheen waxa la yidhahdaa consensus, oo ah inay heshiis ka gaadheen oo ay isla heleen approach ay ku wada heshiis yihiin amaba hab lagu xallin karo dhibaatadan. Marka wixii oo lagu wada heshiiyey oo la isku waafaqay ayaa la yidhahdaa consensus. After much debate, yacni dood dheer ka bacdi leh, the board guddidii reached waxay gaadhay a consensus on the budget. Budgetkii waxay ka gaadheen waxay markaasi ay ku heshiiyeen consensus, ijmaac bay ka gaadheen. Yacni waa si guud bay markaa ay wixii uga heshiiyeen, waa inaan isku waafaqeen ayay ka dhigan tahay. Okay. Unanimity, unanimity maxay tahay? The decision was made with complete unanimity. Waa isla ereyga consensus ayay isku macno yihiin, waa isaguna heshiis weeyaan. Waxaa markaa la yidhi go-aan baa la gaadhay, markaas go-aan dhammaystiran oo aanan cidna ka maqnayn, complete unanimity, cidna aynan ku khilaafin. Halkan muxuu ku yidhi no one objected, ma jiraan cid diiday, ma jirto. Ereygan waxay ahayd inaan ka dhiga markaa inaan isla ereygan xaggan geliya. Unanimity waa kaa kore, laakiin kani waa conformity. Conformity, conformity waa maxay? The design was changed to ensure, designkii waa la bedelay si loo hubiyo the conformity, yacni waafaqsanaanta with the regulations, xeerasha loo dejiyay. Tusaalahaan marka shirkadaha design loo sameynayo, dee tusaalahaan shirkad walba waxay leedahay color gaar ay leedahay. Marka colorkeedii designka la sameynayo mar walba waa inuu colorkeedii uu isku ekaadaa, loogadeeda iyo colorkeeda iyo items iyo waxay ka shaqeynaysa iyo waxaa jira more regulations. Marka waxaa la rabaa qofka designerkii marka uu wixii diyaarinayo inuu wax walba isku aadiyo, so that hadduu khaldo oo uunan isku aadin, tusaalahaan ayaa laleeyahay maadaamuu khalad geeyey waxaa meesha ka baxday conformity, isku ekaanshihii maadaamuu ka baxay, designkii gebigiisiba waa la bedelay si loo hubiyo to ensure, si loo hubiyo conformity, isku ekaanshaha with the regulations, yacni regulationkii loogu talagalay company inuu designkiisa uu ka samaysnaa si ay isugu ekaado designkii la sameeyey. Waad mahadsantihiin. Waxaan halkaasi kasii geli doonaa haddii Ilaahay yidhaahdo muuqaalkan muuqaalka xiga, isla erey kale oo isaguna ka hadlaya muxuu ahaa khilaaf ka hadlaya, erayo badan oo kuwan ka duwanna oo la macno ahana wata. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday. Insha Allah waxaan rajeynayaa muuqaalka dambe inaan ku kulanno adiguna muuqaalada hore kasoo faa'iidaystay. Dhalinyarta kalena dee muuqaalada sii gaadhsiiyo u sheer gareeya. Luqaddu waa wax cid waliba ay u baahan tahay. Hal erey inaad maanta baratahayna waxa ka fiican hal erey inaadan ka baranin wixii conflict ku saabsan, inaad erayo fara badan aad ka baratid oo markaad hadlaysid intaada yaraanaysa markaad khilaafka ka hadlaysid. Laakiin hal erey haddaad garanaysid dee waa xaaladda bariga dhexe tegaysa. Waad mahadsantihiin. Waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iideen. Intaan muuqaalka dambe ku kulmaynana sidaas iyo nabadgelyo.